Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku xiran channelka soo dhowaada. Maanta mawduuceena waxa uu ku saabsan yahay shanta magaalo ee ugu cabsida badan uguna dilalka badan dhanka caalamka. Ku soo dhowaada mawduuceena maanta. Halkanna waa Gudgal Media. Lambar 1 Baghdad. Baghdad waa magaalo ka tirsan dalka Iraq. Baghdad waa magaalo ay ka dhacaan dilal qorshaysan. Maamulka ka taliya waxa weeyaan mid keligii talis ah ama dictator. Waxa ay caan ku tahay gabdho ka yar 18 oo ka ganacsada jidhkooda. Lambar 2 Karachi. Karachi waa magaalo ka tirsan dalka Pakistan. Magaalada Karachi waxa ay caan ku tahay afduubka iyo madax furashada iska daba dhaca ah, waxayna kaalin kaga jirtaa liiska magaalooyinka ugu khatarta badan caalamka. Lambar 3 Cape Town. Cape Town waa magaalo ka tirsan South Africa. Cape Town waa magaalo ku caan ah buuraha iyo badaha aadka u quruxda badan, waxaana il dhaqaale ay ka samaysaa dalxiisayaasha. Hase yeeshee iyaduna waxa ay caan ku tahay dilalka, dhaca, boobka iyo ganacsiga daroogada. Lambarka 4 waxaa nagu jira Acapulco. Acapulco waa magaalo ka tirsan dalka Mexico, waana magaalada koowaad ee ugu weyn dalka Mexico, waxayna leedahay xeeb aad u soo jiidata indhaha dadka. Laakiin magaaladan waxay kaalimaha koowaad kaga jirtaa dilka, boobka, ka ganacsiga daroogada culus, afduubka, marmarna lala beegsado dalxiisayaashaba. Lambar 5 Rio de Janeiro. Rio de Janeiro waa magaalo ka tirsan dalka Brazil, waana magaalada labaad ee ugu weyn dalka Brazil, waana magaalo aad u qurux badan. Magaaladan waxay ka mid noqotay magaalooyinka ugu khatarta badan dhanka ammaanka, waxayna caan ku tahay ka ganacsiga daroogada iyo dilalka, iyo welibana ciyaaridda khamaarka qaaliga ah. Haddaad ka heshay muuqaalkan like saar, kuna soo bir familkayga adigoo taabanaya subscribe. Waad mahadsantahay.